In ka badan 25,000 oo ciidamo militari ah ayaa waxa ay dhoolatus iyo tababaraba ka samayn doonaan waqooyiga dalka Norway, halkaasoo la qorsheynayo in ay ka bilowdaan bisha Maarso ee nagu soo fool leh. Mareykanka ayaa waxa uu soo diri doonaa ilaa iyo 4,000 oo ciidamadiisa ah, kuwa oo qayb ka noqon doona dhoolatuskan militari iyo tababaradan qabowga 2026 ee ka dhici doona waqooyiga dalka Norway. Ilaa iyo 14 wadan oo gaashaanbuurta NATO ka tirsan ayaa ciidamadan gaari doona 25,000 soo kala diri doona, kuwa oo qayb ka noqon doona tababarkan iyo dhoolatuskan loogu magac daray jawaabtii hore. Madaxa isgaarsiinta ee xarunta howlgallada ciidamada qalabka sida ee dalka Norway, Vigard Vinkeberg, ayaa sheegay in ay dhoolatuskan militari ka qayb qaadan doonaan ilaa iyo 4,000 oo askari oo ka socda dalkaasi Mareykanka iyo sidoo kale ciidamo kala duwan oo ka imaan doona ilaa iyo 14 wadan oo gaashaanbuurta NATO ah. Waxa uuna intaa ku daray in xiriirka Mareykanka iyo Norway ee dhanka amniga iyo ciidamaduba yihiin mid sii xoogaysanaya oo aysan jirin wax carqalada iyo caqabado muuqda oo ka dhaxayn kara Mareykanka iyo Norway. Tababarada, dhoolatuska iyo iskaashiga militarina uu yahay sidiisii hore. Waxa uuna intaa ku daray in qaybta hore ay ka dhici doonaan waqooyiga Tromsø 9 ilaa iyo 19 bisha Maarso, iyadoo sidoo kalena ay qaybta dambe ka dhici doonaan waqooyiga wadanka Finland, halkaasoo dhoolatuskan qaboobaha uu yahay midkii ugu ballaarnaa ee ka dhaca waqooyiga Yurub. Waxa uuna intaa ku daray in ciidamada qalabka sida ee Norway iyo NATO ay dhoolatuskan isugu diyaarinayaan kuna qaadanayaan tababaro aad u xoogan, maadaama amniga guud ee qaaradda Yurub iyo wadamada midowga Yurub iyo sidoo kale gaashaanbuurta NATO uu yahay mid aad muhiim u ah, loona baahan yahay oo la joogo marxaladii ciidamada militariga loo tababari lahaa sida ugu sarreyso, loona sii lahaa hubka kiisa ugu casrisan, maadaama ay dunidu ku jirto marxalad laysu diyaarinayo dagaalo xoogan iyo hub aruursi iyo ciidamo diyaarsi. Dhoolatuskan militari ee bisha Maarso ka dhici doona waqooyiga Norway ayaa waxa uu ka mid yahay dhoolatusyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee wadamada gaashaanbuurta NATO isugu diyaarinayaan dagaal laga cabsi qabo in uu ka dhaco ama uu ka qarxo qaaradda Yurub. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.